waxyaalaha loo yaqaan marka food and energy cuntadii iyo marka gaastii iyo shidaalkii batroolkii wixii la mid ah labadaas adduunka dawlad kastoo adduunka joogtaa way ilaashataa labadaas oo dadweynaheeda iyadoo ilaalinaysa ganacsatadeeduna maanta mentality-ga ay wax ka bedeshiyo fikirka ah inay lacag intay qaadan kaasha banaanka u saarayaan ee dabatana alaab ay ku keenayaan inay taa inta iska dayaan ay isku dayaan inay halkan ay ku sameeyaan alaabta bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri dunya wa diin ama ba'd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa maxay sicir bararku muxuu yahay sicir bararka waxa la yiraahdaa kor u kac ku yimaada qiimayaasha si istaba jooga heerka guud ee qiimayaasha si istaba jooga qiimayaasha kor u kacaan ayaa loo yaqaan sicir barar macnaheedu taana waxa weeyaan hadii uu shay qiimihiisu marka waxa weeyaan uu kor u kaco ama laba shay uu kor u kaco lama oran karo taas waa sicir barar laakiin waa in si guud marka waxa weeyaan qiimayaasha oo dhan ay wada kacaan si istaba jooga marka waxa weeyaan uu ku yimaado waxa muhiim iyadana in doonayna inaan ogaano maxaa sababa sicir bararka waxa sababa laba sababood waaweyn ayaa keena mid wax loo yaqaan markaas inay wato sicir barar marka uu dabada ka riixayo ama marka wax weeyaan uu jiidayo wax la yiraahdo marka wax weeyaan dalabka adeega badeecadaha iyo adeega la dalbanayo dadku ay u baahan yihiin iyo wax weeyaan badeecadihii suuqa yaalay ayaa kala badan salahan dadku markay doonayaan marka wax weeyaan inay dadku lacag bay haystaan wixii suuqa yaalayna marka wax weeyaan way yar yihiin raashinkii meesha yaalay baa yar badeecadihii kale yaalay baa yar adeegii kale yaalay baa yar dadkuna marka wax lacag bay haystaan taasina marka wax weeyaan lacagta ayaa waxay ka badan tahay alaabtii suuqa ku jirtay iyo adeegii loo baahnaa qaybta labaad waxa sababa wax weeyaan wax loo yaqaano cost push inflation oo macnaheedu ay tahay marka wax weeyaan badeecadihii oo ay dabada ka riixayso maxaan ku raadayay wax weeyaan kor u kaca qiimaheedu uu sababtay koskii badeecadan lagu sameeyay oo kor u kacay midalan hadii daqiiq marka aynu ka hadlayno kale daqiiqda waxa laga sameeyaa sarreenkii marka hadii sarreenkii uu kor u kaco qiimayaashoodii waxa iman doonta marka wax weeyaan inuu kor u kacdo iyaduna daqiiqda lafteedii waxaynu gudbaynaa maxaa lagu daweyn karaa ee wax laga qaban karaa laba siyaasadood oo waaweyn oo dawladdu ay isticmaashay ayaa jira dawladaha adduunku mid la yiraahdo marka fiscal policy oo siyaasad maaliyadeed iyo mid loo yaqaan monetary policy oo siyaasad lacageed labadaas siyaasadood waxa iska kaashada waxa weeyaan banka dhexe iyo wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda ayaa iska kaashada siyaasadahaas mid walba tools bay leeyihiin marka wax weeyaan ay wax kaga qabanayaan oo isticmaalayaan siyaasadda lacagta markaan ku horeyno waxyaalaha ugu muhiimsan inagu bangiyada aad isticmaalka bangiyada iyo dadkeenu bangiyada say ugu xidhan way yar yihiin laakiin adduunku bulshada joogta wax weeyaan meelaha lacagta dhigtaan kala baxaan ka qaataan waa bangiyada weeyaan marka lacagaha dadku ay bangiyada ka qaadanayaan ayaa markuu sicir barar daran jiro lacagaha ayaa reedkooda kor banka dhexe kor ugu qaada kadib marka kor loo qaado reedkana waxa weeyaan wax yaraan lacagtii dadku ay bangiyada ka qaadanayeen ee suuqa galeysay sidoo kale wax weeyaan lacagtii dadku ay bangiyadu ay ka qaadan jireen bangiyada ganacsiga ay ka soo qaadanayeen banka dhexe kale ay ka soo deynsanayeen iyadana reedkeedu kor baa loo qaadaa si marka wax weeyaan ay u yaraato lacagtii bangiyada dhexe ganacsiga soo galeysay iyaguna ay marka suuqa sii gelinayeen sidoo kale waxa jirta wax loo yaqaan open market operations wax la yiraahdo jira oo ah dawladdu inay suuqa soo gasho iyadoo iibinaysa certificates iyo shahaadooyin ay u tala gashay marka inay wax weeyaan suuqa lacagta kaga saarto inta waxay soo galaysaa marna iyadoo payer marna iyadoo seller marna iyadoo wax iibsanaysa marna iyadoo wax iibinaysa shahaadooyinka markay dadka u dhiibaan marka shahaadooyinka dadku ka soo qaadanayaan dabeetana waxa dhacaysa marka inay dadkii shahaadooyin siiyaan lacagtana ka soo xareeyaan muhiimaduna waxay ahayd lacagta suuqa ku jirta marka wax in la kontrolo oo la soo yareeyo waxa kale marka wax weeyaan sarifka laftiisu qiimaha sarifka isaga laftiisuna wax weeyaan waa meelaha ugu muhiimsan siyaasadda labaad ee kale waxa loo yaqaan fiscal policy ama siyaasadda waxa weeyaan maaliyadeed baleeda siyaasadda maaliyadeed toolska ugu muhiimsan ee la isticmaalo waxa ugu muhiimsan inay dawladdu qarashaadka ay isticmaalayso iyada lafteedu uu qayb ka yahay oo suuqa marka wax weeyaan saameyn ku leeyahay qarashka dawladda ka baxaya ee isticmaalayso markaas oo kale marka sicir barar daran jiro dawladda qarashka isticmaalayso way yareysaa hoos bay u dhigtaa toolka labaad ee kale la isticmaalo waxa weeyaan waa cashuurta dawladdu ay dadweynaha ka qaadayso marka xilliga sicir bararku jiro marka wax weeyaan hoos baa loo dhigaa si marka wax weeyaan ay u yaraato marka wax weeyaan dhibaatadaas toolkaasina waa ka weyn waxa kale jirta toolka la saddexaad dawladdu inay deyn soo qaadato deyntaas oo noqon karta mid ganacsatada waddanka gudihiisa joogta ay ka qaadanayso iyo mid marka wax waddanka dibadiisa ay ka soo qaadanayso taasina marka waxay noqonaysaa iyaduna qayb kale oo ay dawladdu marka wax weeyaan ay deymaheeda ku helayso tan halka kaga soo gudbino waxaan u gudbaynaa imisa nooc buu u kala baxaa sicir bararku marka loo eego inflation rate-kiisa marka loo eegayo noocyo fara badan buu leeyahay
nooca ugu caansan ee uguna weyn ee ugu khatarta badan waxa loo yaqaan hyper inflation waa sicir barar aad iyo aad u daran oo marka wax weyn reedkiisuna uu sareeyo waana ka marka wadamada imika adduunka sanadkan aynu ku jirno 2022 iyo marka wax weyn wadamo ka horeeyay xitaa bilii sanadadii ka horeeyay taariikhdii hore bilaadanka soo wada martay ku wada dhacday taasina marka wax reedkiisu aad bay u sareysaa imika laba wadan ayaa marka wax weyn imika wadamada adduunka hadda ugu sareeya meesha ugu xun ku marayo ka jirta wadanka loo yaqaan Venezuela Lebanon Sudan iyo wadamo kale fara badan ba jira marka wax weyn wadamada aadka ugu sareeya ku jiro inaga Kenya lafteedna hadii la cabiro halbeegii saxda ahayd iyo reedkiisa la eego waxaan aaminsanahay marka wax weyn inuu jiro hyperinflation oo u baahan marka wax weyn in wax laga qabto waxa kale muhiim in doonaa iyadana in ogaano sicir bararka dawladdu maxay ka qaban kartaa ay isticmaal maxay sameyn kartaa kan maanta Soomaaliland ka jira waa mid nooceeya maanta Soomaaliland ka jira waxaan oran karnaa waa sicir barar ka yimi meelihii badeecaduhu marka wax weyn ay ka yimin maadaama in wadankeenu wax la soo degista in la soo degayno waxaynu la soo degnaa marka wax weeyaan banaanka ay ka keenay waxaan dhoofinaa ay kala badan yihiin waxaynu soo dejinaa ay ka badan tahay waxaynu dhoofino macnaheedu marka alaabaha cuntooyinka cunayno iyo qalabka dhismaha isticmaalayno iyo gaadiidkeena shidaalkeena wixinaba 99% waxa la oran karaa waxaynu la soo degnaa marka dhulka ay joogeen bay ka qaali garoobeen transportation cost-koodii baa kacay containeradii wax lagu soo qaadi jiray baa kacay halkan markii yimaadeen marka alaabtii qaaliya baa inoo soo gaadhay laakiin dawladda maxaa la gudboon ay wax kaga qaban kartaa weeyaan waxa la gudboon ay wax kaga qaban kartaa wax weeyaan alaabtu marka ay timaado dalka ay soo gasho inay cashuurta ka dhaafto especially marka laga hadlayo waliba waxyaalaha loo yaqaan marka food and energy cuntadii iyo marka gaas iyo shidaalkii batroolkii wixii la mid ah labadaas adduunka dawlad kasto adduunka joogtaa way ilaashataa labadaas oo dadweynaheeda iyadoo ilaalinaysa cuntada iyo marka shidaalka wax weeyaan way yara ilaashataa marka labada waxa la doonayay in cashuurta dawladdu inay kaba dhaaftaba cashuur dhaaf u samayso qiimaha cashuurta ay ka deysayna marka wax weyn ay ku kontrolsho ganacsatada hadaan ka wada dhaafi kareenina inay in badan oo kamid ah wax weeyaan ay hoos uga dhigto ayna kula socoto waxaan maqlaayay wasiiro iyo dad dawladda kamid ah oo leh suuq waa xor suuq haduu xor yahay hadana dawladdu adduunka wax weyn dawladaha jooga kuwa marka Mareykanka iyo reer galbeed iyo adduunka sida dawlad kasta joogta suuqa way soo faragashataa oo price marka wax weeyaan price determination wax la yiraahdo bay sameeyaan iyaga jaangooya qiimaha wala jaangooya markay quutal daruuriga noqoto cuntada noqoto shidaalka noqoto wala jaangooynaya wala soo faragashanaya dawladduna marka wax kale ku waajiba oo ku wanaagsan marka dawladdu marka xaaladahan oo kale ku jirto inay hadii ay ganacsatadu kuba filaan waayeen in iyadu shidaal keensato in iyadu raashinka la soo degto kadibna marka ay ganacsatada dib uga siibiso iyadu qiimaha marka u jaraysa marka waxa didaysa adduunkana waxa jira wax loo yaqaano marka dalka dhaqaalihiisa laga hadlayo actors baa jira mataliye maxay marka dawladdu jirtaa dawladdu labadaas u dhaxaysa labada qolo ayay u dhaxaysa ganacsatada iyo dadweynaha dhexdooda ugu jirtaa oo qiimaha ay kor u qaadayaan ee faa'iidadan faraha badan ay kuwan ganacsatada doonayaan iyada oranaysa ka jooga kuwan marka waxa weeyaan dadweynaha ee doonaya iyaguna inay wax jaban helaan oo tayadeedu sareyso wax tarkooda badan tahayna iyada marka u xadidiso dhexdooda ugu jirta sidoo kale taladan soo jeedinaya waxa weeyaan markaan gabagabadeeda soo istaagno in aynu ku dadaalno wax soo saarka wadanka gudihiisa dhanka beeraha dhanka warshadaha iyo dhanka marka maalgelinta shisheeye inay soo jiidano oo dalka aynu wax kala soo baxno ganacsatadeennuna maanta mentality-ga ay wax ka bedeshiyo fikirka ah inay lacag intay qaadan kaasha banaanka u saarayaan ee dabatana alaab ay ku keenayaan inay taa inta iska dayaan ay isku dayaan inay halkan ay ku sameeyaan alaabta xataa iyadoo raw materials la keeno iyadoo qeylin alaabta la keeno oo halkan lagu xidhxidho oo halkan lagu warshadeeyo halkan lagu farsameeyo taasina waxay ka dhalanaysaa marka in laga helo shaqo abuur ay samayso alaabtii marka qiimo jaban la helo waxtar badan oo fiican marka runtii ay u samayso bulshada